waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa meel walba ay joogaan sida sharafta leh oo ay karaamadu ku dheehan tahay oo maanta liigu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho dhammaan shacabkii Soomaaliyeed oo qoraxda taagnaa dhammaan degmooyinka magaalada Muqdisho oo iyagu isa soo xilqaamay si magaalada dib iigu soo dhaweeyaan waxaan halkaan uga dirayaa tahniyad iyo mahadnaq waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay waxay jeclaysiiyaan shaqadii aan waday inaan sii xoojiyo waxay ugu dhiirigelinayaan inaan ula jeclaado wax walba iyagu ay jecel yihiin siday u jecel yihiin dhammaan dadkii Soomaaliyeed oo ay soo dhaweeyay dhalinyaro iyo waayeel rag iyo dumar madax iyo shacab waa u mahadcelinayaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo mar walba muujiya macnaha ay xambaarsan tahay dawladnimadu sidii aan xilka uga degay waxaan muddooyinkii la soo dhaafay wada tashi la sameynayay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo dalalkii aan safarada ku soo kala bixiyay qof walba oo Soomaaliyeed oo aan soo arkay wuxuu rajo ka qabaa dalkiisa iyo horumarka dalkiisa ragga iyo dumarka culimada iyo ganacsatada dhalinyarada iyo ciidanka cid walba oo aan talo weydiiyay waxa ka muuqata rabitaan ah dalkan in laga hirgeliyo dawladnimo waarta dalalkii aan ku tagay safarka waxa igu soo dhaweeyay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan waxaan ka bilaabay safarkayga Djibouti oo madaxweyne Ismaaciil soo dhaweeyay waxaan ku xajiyay Kenya oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ku dhaqan dad dawladda Kenya u shaqeeya oo Soomaali ah iyo Soomaali halkaas ka ganacsatada waxay ii soo dhaweeyeen si sharaf leh waxaan ku maqnaa magaalada Istanbul oo halkaasna si diiran ay ummadda Soomaaliyeed igu soo dhaweeyeen madaxdii aan Soomaalida ahayn oo aan la kulmay waxay rajo ka qabaan iyaguna inay noqoto Soomaaliya dal ay wax la qabsadaan mustaqbalka oo laga hirgeliyo dawladnimo iftiinta meel walba oo aan tago shacabka Soomaaliyeed waxa ka muuqatay rajo laakiin meel walba oo aan tago waxa ka muuqatay shacabka Soomaaliyeed inay walwal iyo walaac ka qabaan xaaladda adag ee uu hadda dalku marayo sidaad ogtiin intii aan ra'iisul wasaare ahaa ayaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah xalaal ah la isla ogol yahay la isla aqbalsan yahay loo wada siman yahay inay tahay astaan dawladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku talaabsatay khasabna ay tahay inaan xajino inta aan dawladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyay fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo waa qaab waafaqsan dastuurka laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dawladnimada ka dhalata sidaas daraadeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii la soo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo kamida oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeenna gaar ahaan Ethiopia oo qalalaasa hadda ka taagan loo aanaynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina waan ognahay taariikhda ay dalkeena ku leedahay waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca si dawladnimadu aanay gadaal ugu dhicin si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin waxa muhiim ah dalkan inay ka qabsoonto doorasho la isla ogol yahay
ma aha waxaan hadda sheegayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi waxa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwaliya walaac waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas sidaas daraadeed ayaa waxaan u dirayaa mar kale fariin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dawladda waa muhiim in lagu heshiiyo nidaamka doorashada si ay u dhasho dawlad la isla wada ogol yahay marka lagu heshiiyo nidaamka doorashada waxa ka soo baxa waa waxa ay shacabka Soomaaliyeed ogol yihiin haddii aan lagu heshiin waa iyadoo khatar la geliyay dawladnimadii ummadda Soomaaliyeed loo dhoobay anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan Soomaaliya inay noqon karto dalka ugu fiican qaaradda Afrika waqti kooban haddii loo dejiyo nidaam sax ah si taasi ay u dhacdo marka waxaan mar kale ku baaqayaa in waqtigan kala guurka dawlad goboleed iyo dawlad federaal siyaasiyiin iyo ganacsato culummo iyo dhalinyaro haween iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo ka damqanaysa dawladnimada inaan kulligeen u soo wada jeesano sidii aan xaaladda adag ee dalku hadda ku jiro aan uga saari lahayn maalmaha soo socdana doodeennu waxay ku wajahnaan doontaa arrinkaas isaga codad badan ayaad naga maqli doontaan oo la xiriira sidii aan ku talin lahayn oo ah qaabka aan aaminsanahay in dalkan looga hirgelin karo inay ka dhacdo doorasho loo wada dhan yahay mar labaad waxaan u mahad celinayaa shacabkii Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo aniga soo dhaweeyay waxaan u taaganahay in aan u adeego ummadda Soomaaliyeed sida aan hore ugu sheegayna si hufan daacad ah ka madax bannaan musuqmaasuq ka madax bannaan qabyaalad qof waliba waajib baa saaran qof waliba muhiimad ayay u tahay inuu dalkiisa u turo una shaqeeyo labaduba ummadda Soomaaliyeed way ugu soo barteen welina waan u taaganahay ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waqtigan adag waa muhiim in gacmaha la isqabsado si dalka looga samata bixiyo xaaladda adag uu ku jiro waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh